بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabaa muuqaalkaygan in aan uga hadlo insha Allah bisha shanteeda waxaa la qabanayaa doodaas oo loo qabanayo musharaxiinta u taagan xilka madaxweynimada 2022 ee Soomaaliya runtii ka fikir ahaan musharaxiintaasi oo Soomaalida xilkeeda u taagan in madaxweyne ka noqdaan in ay fikir ahaan aad ay u fiican tahay in qof walba Soomaali u soo dhaweeyana waa maaragtay wax aan qabo oo aniga dhowr jeer ayaan arintaasi aan ka hadlay sababtoo ah shacabku waxay ku ogaan lahaayeen cidda doonanaysa xilkaasi waxa uu taagan yahay waxa uu yahay iyo sida uu rabo in noloshooda uu wax uga bedelo oo macnaha caqabado badan maanta ay jiraan haddii amni noqon lahayd haddii ay noqon lahayd maaragtay shaqo noqon lahayd haddii ay noqon lahayd cadaalad haddii noqon lahayd haddii ay noqon lahayd maaragtay fursado ay noqon lahayd intaba in ay fikradu aaminsan in lagu ogaado iyo sida uu dhaqan gelina aad ay u fiicanayd laakiin nasiib xumo doodan in musharaxiinta madaxweynimada u taagan oo ugu taagan shacabkan iyo dalkan Soomaaliya ugu taagan in aysan lahaanin qabanqaabadeeda iyo maamuladeedaba dad Soomaaliyeed aysan lahayn horta aad ay u nasiib xun ayay u tahay oo dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliya ay ku tahay haddaba waxaan anigu aaminsanahay aanu ku dhiiranahay in aan macnaha ay qabanqaabada doodan iyo maamulkeeda inay leeyihiin dad aan Soomaali ahayn haddaba maaragtay maxaan ku cadeyn karaa maaragtay in ay arrinkaasi uu jiro waxaan ku cadeyn karaa waxay isweydiisaan in doodaasi ay dhacayso bisha shanteeda imise qof Soomaali ayaa og runtii waxaan aaminsanahay in yar inay og yihiin aniga nila hadlayo xalay un baan ogaaday labo yay tahay cidda maalgelisay oo qabanqaabisay bal aan fiirino liiska United Nations laba safaaradda Mareykanka saddex safaaradda Ingiriiska afar safaaradda Sweden shan safaaradda Norway taa iyadana waxay caddeyn u tahay qabanqaabideeda iyo qabanqaabid inay dhacdo doodaas iyo maamulkeeda inaysan Soomaali lahayn saddex cidda maaragtay oo weydiinaysa su'aalaha musharaxiinta u taagan madaxweynimada yay yihiin runtii waxaa lagu sheegay saddex qofood inay yihiin laba ka mid ah mid wuxuu wariye ka yahay idaacadda VOA-da waa Haruun Macruuf midka labaad wuxuu asna wariye ka yahay idaacadda BBC-da London kan saddexaad anigu wax badan kama sheegayo wuxuu ahaa wasiirkii hore maaragtay waxbarashada ee Puntland Cali Warsame ayaa la yiraahdaa marka intaas iyo goobta lagu qaban doono waa halkee waa Xalane intaasi waxay caddeyn u yihiin in ay macnaha ay qabanqaabada iyo maamulidda doodan loo qabanayo madaxda Soomaaliyeed aysan lahayn Soomaali waxay ahayd Soomaali inay yeelato waayo sababtoo ah ciddan waxay madax u noqon doontaa Soomaali ay u noqon doontaa ciddan waxay u taagan tahay in noloshooda iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha haysto ka dad ahaan iyo ka dal ahaanba in ay ayagu ay macnaha ay ayagu ahayd ownership-kooda ama ay lahaanshaha doodan inay lahaadaan nasiib xumo maysan dhicin cadeymahaasi ayaan u hayaa in aysan Soomaali doodani aysan shuqul ku lahayn oo madaxdooda mustaqbalka wadanka rabta inay wadanka qabato maaragtay aysan waxba ku su'aali karin maamulkeedan lahayn waxaan rabaa marka in aan maaragtay dadka doodan qabanqaabinayo aan u soo jeediyo arrin tala ah oo ku aadan maaragtay qaabka ay u qabanqaabiyeen dooda oo ku saabsan su'aalaha iyo mid ah maaragtay in aan xusuusiyo inaysan xaq u ahayn dadka shacabka Soomaaliyeed iyo maaragtay musharaxiinta u taagan madaxweynimada oo u taagan xilka madaxweynimada iyo rajo aan ka qabo maaragtay musharaxiinta maaragtay oo u taagan xilka madaxweynimada in ay doodaasi ay la yimaadaan aan ku bilaabo midda aan ku aadan maaragtay dadka iskale qabanqaabada iyo maamulka doodan mid horta runtii tala ahaan anigu waxaan qabaa maaragtay su'aalaha aad rabtaan inaad weydiisaan musharaxiinta waxaad ku sheegteen in ay tahay shan su'aalood inay tahay waxay tahay mid amniga laba inay tahay mid dhaqaalaha saddex inay tahay siyaasadda bulshada mid afar inay tahay mid cimilada
shan inay tahay siyaasadda arrimaha dibadda isla markaas waxaa sheegteen doodaasi waxaa ka qayb galayo 14 musharax oo u taagan xilka madaxweynimada waqtiga ay soconaysana waxaa ku tilmaamtay inay tahay 2 saacadood oo kaliya miyaysan xaq ahayn marka ku ahayn oo shacabka iyo dadka musharaxiinta ee u taagan xilka in dood saas u ballaaran oo 5 tiir oo ah state building ka mid ah oo laba wali ay ugu sii muhiimsantaa oo ah arrinta amniga saddex ay ugu muhiimsantaa dhila arrinta amniga iyo arrinta ma aragtay siyaasadda bulshada iyo dhaqaalahaba macquul ma ku tahay marka in 14 musharax iyo topic oo aad u weyn mawduuc oo aad u weyn oo u baahan shacabkan in ay su'aalo jawaabo badan oo waasaca inay ka helaan faahfaahin iyo waqtiga aad lahay waqtiga oo 2 saac ah iyo dadka musharaxiinta oo maaragtay aad 14 oo tirada ka batay marka ma ka heli doonaan shacabka marka su'aalo waafi ah oo buuxa oo macnaha oo maaragtay si qayaxan oo maaragtay ay wax ku fahmi karaan oo jawaab noocaas ma ka heli karaan run ahaantii kama heli karaan musharaxiintana waxaa xaq u ahayn maadaama 14 ay yihiin in maaragtay 14 qofood oo shantan maaragtay mawduuca wax ka weydiinaysaan in ninkii hayay inuu su'aalaha si fiican ugu jawaabo oo waqti yar uu haysto si fiican ugu jawaabi karin bas ayagana xaq kuma aha tan saddexaad oo aan rabo waxa waaye rajo aan ka qabo maaragtay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynimada runtii rajada aad ka qabo waxay tahay in doodaas aad ka qayb galaysaan in aad la timaadaan aragti iyo hindiso oo hadaf leh dhaqangelinteeda iyo sababta ay muhiim u tahay arrintan in fikir ahaan iyo dhaqan ahaan in loo dhaqangeliyo in aad la timaadaan sababta aad waxaad doonateen xilkii aad waddankan dadkiisa iyo dalkaba aad ku samarta bixin lahaydeen waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaadan noqonin dad xilka u doontay fikir iyo dhaqangelin maaragtay ay leeyihiin iyo dhaqaale ku bixin ay leeyihiin wadamada shisheeye sida adinka aad ku fulin lahaydeen runtii taasi ma ahan qofka liidarka ah shaqadiisa ma aha oo ma tihin fuliyaal ma tihiin waayo sababta ah fikirkii ma lihidiin waddankiina dhibaatadiisii wuxuu yahay dhibaatada waddankan haysata maxay tahay shacabkan ku kala maqan yihiin sidee shacabkan iskugu keeni karaa sidee maaragtay security waddankani aad dowladdaas aad berrinti madaxa adag ka noqonaysa saad u maamulaysaan hadday noqon lahayd gudaha waddanka sideed maaragtay security-ga maaragtay xuduudaha wadamada dariska leh aad u maamulaysaan idinka ma leediin dhaqaalihii waddankan oo lagu madax banaanaan lahaa maaragtay oo wadamada shisheeye oo caawinaad oo deynta berrinti deyn lagu noqon doonto jiilkan iyo jiilalka ka dambeeya idinka ma leediin maaragtay ciidankan shisheeye waddanka jooga sidii loo bedeli lahaa oo ciidan qaran loo dhisi lahaa idinka ma leediin marka haddii aad maaragtay 22 sano ayaan waxaan kusoo shaqaynaynin fikir iyo dhaqangelin iyo dhaqaale gelin aan runtii maaragtay madaxda Soomaalida aysan waxba ka lahayn cid kastoo madaxweyne shalay soo noqotay waxba ma aysan ka lahayn waxaan idinka rajaynayaa taasina waxay diilay shacabku u noqonaysaa haddii aad la timaadaan fikir iyo aragti oo hindise ah iyo programmo siyaasadeed oo iyo aragti siyaasadeed oo aad runtii aad macnaha oo ka gedisan wixii 22 sano oo aad leedihiin lahaanshadeeda idinka leedihiin fikirkaasna uu yahay fikir Soomaaliyeed oo maaragtay oo qof Soomaali ka soo maaxday inaad la timaadaan oo aadan noqonin dad fuliya maaragtay programmadaas aan soo sheegay oo loogu talagalay Soomaaliya haddii kale sababta hadda maadaama ari Ingiriisi waxaa jira oo dhahay imitation has a limitation macnaheedu waxay tahay maaragtay haddaad maaragtay oo aad ku dayasho isaas suubina aad tiraahday bari hadday wax qaldamaan ma sixi karto meesha dhibaatada ka timaada ma taqaanin saad u sixi lahayd ma taqaanin laakiin marka adiga leedahay fikirka iyo aragtida iyo hindisaha aad leedahay iyo programka adiga leedahay waxaad awoodaa in aad garan karto dhibaatada inaad garan karto haddii wax kaa qaldamaan aad sixi karto haddii wax ku hagaageen steebyada aad qaadaysid tallaabooyinka ayay kugu sii dhiirigelinaysaa
ilaahay waxaan ka rajaynayaa in aad la timaadaan maaragtay ajenda ka madax bannaan ajendooyinka 22 sano lagu soo shaqaynayo haddii laakiin ay su'aalaha nila weydiinaya ay noqdaan su'aalihii fikradihii iyo aragtidii iyo siyaasadihii loogu talagalay maaragtay Soomaaliya 22 sano haddii noqon lahayd security haddii noqon lahayd constitution haddii ay noqon lahayd kobcinta dhaqaalaha haddii ay noqon lahayd adeega bulshada oo caafimaadka iyo maaragtay waxbarashada iyo cadaaladda iyo maaragtay ay noqon lahaydba intaba hadday yihiin kuwii hore loogu soo shaqeeyay oo kuwaas wax nila ka weydiiyey runtii waxay dhibaato ku noqonaysaa ummadda Soomaaliyeed rajadaas haddii aad macnaha la imaan weydaan runtii waxay ku noqonaysaa dadka Soomaaliyeed arrin maaragtay oo maaragtay oo niyad jab ah waxaana meesha ka soo muuqanayo in aad ahayn dad hogaamiyaal inaad ahayn oo aad shaqada kaliya u doonateen inaad wax fulisaan oo aad wax fulisaan oo positionkaas kale afushaan insha Allah aragtidaysa oo aan ka qaba hadda maaragtay doodaasi dad badan ayaa u arki doona maxamed xuseen cabdi wuxuu soo degdegay oo maaragtay oo fikirkan uga qaatay runtii dadka Soomaalida kaliya loo yeeray waxa waaye idaacadihii waxa laga hadlayo waa wadankeeni waxa laga hadlayo waa madaxdeeni waxa laga hadlayo xalkeeni iyo dhibaatooyinkana haysto runtii waxaan ka fiirsan doonaa oo kaliya TV-da waxa kaliya aan ku leenahay waa aragtidaas aan TV ka fiirsanayno wax maaragtay oo aan ku leenahay ka madax ahaan iyo ka shacab ahaanba ma jirto waana tan aan 22 sano ku soo dhex jirnay waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh